waxaan jeclaan lahaa meeshan waxaa ila yaala identity card-ka Kenya iyo ka Soomaaliya bitaqa alhawiya iyo passport-ka Kenya iyo passport-ka Soomaaliya maxaa ku kala qoran bal meesha layna geeyay baan doonayaa inaan misaal idinka siiyo kaarkan waa kaarka ay dawladda Soomaaliya bixisay waa kaarka aqoonsiga ruuxa Soomaaliga ah baasaboorka lagu siiyaa Soomaa waxa ku qoran marka la soo gaaro ruuxa jinsiga uu yahay waxa ku qoran kelimada carabiga al-jins waa sax Soomaaligana waxa ku qoran ma qorna waxa qoran lab ama dhadig yaa qoran laakiin Englishka marka la yimaado luqada Englishka maxaa qoran jen baa qoran jen maxay tahay gender oo la soo gaabiyo baasaboorka ay dawladda Soomaaliya bixiso waa ka waay asagana meesha jinsiga ruuxa tilmaamaya waxa ku qoran kalimatul jinsi oo carabiya lab ama dhadig oo Soomaaliya laakiin marka luqada Ingiriiska la yimaado waxay qorayaan gender soo waxna dagaalayna waa dawladda Soomaaliya kaarkay bixisay baasaboortkay hadda bixiso waxa ku qoran gender baa ku qoran maxaa kuwii hore ku qornaan jiray ka Kenya maxaa ku qoran kan Kenya kaarka muxuu ahaayay maxaa la yiraahdaa identity card-ka Kenya waxa ku qoran ruuxa jinsiga uu yahay sex baa ku qoran sex kuna laba mid u muuqnaa ama wuxuu noqdaa nin ama wuxuu noqdaa dumar male ama female buu noqdaa laakiin genderku waa kelimo cusub oo waa kelimadan ka hadlaynay Kenya lama gelinin baasaboorka Kenya markaad soo qaado sidoo kale waa isagana kuma qorra gender kuma qorra waxa ku qoran sex baa ku qoran oo marka ama male ama female ama lab ama dhadig baasaboorada Afrikaanka saasa ku qoran bal waxaad isweydiisaan dawladda Soomaaliya iyo Soomaali meesha sex maxay uga guureen oo gender u qaateen ما يفهمون بها سينا وفهمسنين متعلمين واي waxa wax dhigay mutacallimiin waay aqoon-yahan waay luqadda iyo erey bixinta way yaqaanaan isticmaalka hadda loo isticmaaliyo dhanka loo wada way yaqaanaan ceeb waay waxa noocan oo kale ceeb waay dawladdii dalkii muslimka ahaa dadkii muslimka ahaa inay horboodo wax la yiraahdo gender maanta oo dokumentiyada ku qorto dawladihii gaaladuna ay diidaan soo ceeb weyn ma waxaan ka hadlaynaa ka way mar dagaalka lagu la jiro ma aha inaan isu dhiibno nooroodna ma aha waana mid keenaysa dumarkii siyaasiyiinta inoo aha inay wax noocaas oo kale horboodaan oo public u horboodaan oo hatta madaxdii iyo dadkii wadanka maamulaya toona aynan hal kelima ka dhigin waxa uu ololeynay dokumentiyadiina waa lagu qortay baynamaa haddaad u timaado caalamul islaami dagaal baa lagu la jiraa fikradda noocaas oo kale Sacuudiga 11 bilood gudahooda waxay ka masaafuriyeen wadanka ka eriyeen 3,000 oo dadka noocaas ay ka eriyeen wadanka oo markay ka war heleen la masaafuriyay Qatar oo hadda ciyaaraha caalamiga mar way ka socdeen maxay ku sameeyeen dadka noocaas oo kale soo lama socotaan diyaaradoodii hawada iyadoo ku soo jirtay hawada ka celiyeen oo dheheen ma soo gali karaan wadankana calaamadoodii astaantooduna ka muuqan karayso dawladihii Afrikaanka la dagaalamayo darkaysan Uganda iyo Kenya iyo dawladuhu say ula dagaalamayaan fikirka noocan oo kale annagana inaan dokumentiyadeena ku qorto dawladda Soomaaliya soo ceeb weyn ma warwarkaas gaarsiiya nimanka meesha fadhiya warka gaarsiiya